laba qiso ayaan doonayaa inaan idla wadaago oo dhalinyarta tusi karta si ama wiil ha noqdo ama gabar ha noqotee hadduu qofku isagoo dariiqii macsida ku socda hadduu istaago oo naftiisa la xisaabtamo uu isweydiiyo ciddu yahay qofkii ilaahay subxaanahu wa ta'aala toobada waa ka aqbalaya una soo noqonaya laakiin waxa weeye waa inuu kartida lahaado uu rabbigii ku kalsoonaado naftiisa ku kalsoonaado umar walba xusuusta inuu change iyo tagyiir iyo isbedel ku sameyn karo noloshiisa sheekh baa laga soo warinayaa masriya xajkan bay ahayd baan filayaaba intii aanu xajki bilaawmin ayaa nin baa yimid ninku wuxuu igu yidhi sheekho waxaan cabbaa shiishadda waa tii markaa walaalkeen ka hadlayay presentationka shiishaddan cabbaa hukana waa la yidhaahdaa laakiin buu yidhi bahasha shiishadda kuma kayfo oo kuma marqaamo ilaa aan cajaladahaaga daawado adigoo muxaadaro bixinaya mooyaane bahashu ima dhaadhacaysaba ima dhaqaajinayso sheekhu waa sheekh maxamed yacquub waad garanaysaan sheekh maxamed yacquub allah yaxfadhu xaalkaygu waa saabuy inaan cabuun maahe haddaanan shidin fiidiyahaaga cajalada aan daawan marqaankaba ma garanaysaa ma gaadhayo wuxuu ku yidhi sheekhow laakiin xajkan inaan adiga aan kula socdo ayaan doonayaa ilaa xajku inoo dhammaanayo adiga ayaan kula soconaya sheekhaa ka sheekayna wuxuu yidhi ninkii wuu nala socday wuu nala xajiyey carafa musdalifa mina wixii oo dhan tawaafkii markii maalimihii ugu dambeysay ayaa uu idedejinaya sheekh maxaa dhaqso inoo socodsii ciddaan la istaago sheekh dad hadalkaaga batayna socodsii anu tawaafno waanu tawaafnay una la tawaafay maqaam ibraahimkii uu tegey soo laba ragcadood ugu tukado markuu labadii ragcadood uu galay isagoo sujuudsan ay nafti ka baxday baladku qiyaasa yani ikhwaani nihaayadaasi ah in qofku naftu ka baxdo isagoo beydkii ilaahay ku jira bal maqaami ibraahim ku jira in hortaagan oo waliba sujuudsan bal fadaa'isha isku darsantay ninkaay waa muhrima wa hajiya beydkii ilaahay buu ku dhex jiraa ilaahay buu u sujuudsan yahay billahi alaykum kam min al-ubbad noloshooda ku dhamay afnu a'maarahum noloshooda iyo cimrigooda ku dhameeyay cibaado iyo qiyaam leel iyo dhikri iyo salaad iyo soon tamaniya in nihaayadaasi ay noloshooda ku dambayso laakiin ilaahay aanu siin laakiin ninkan min ashiisha shiishu cabay shiishadana waad garanaysaa sharkeega wuxuu ku dambeeyay in isagoo sujuudsan u dhintay marka qaar kood ay culimadu tilmaamaan waxyaabaha nihaayada qofka raadka kuli waa qalbigiisa غالبا qofku xitaa isagoo macsuum ku jira hadii uu yahay qof hambara oo mutawaadica oo kibri aanu ku jirin ilaahay uu islaaxay laakiin qofku isagoo caabida hadan laakiin yatakabbar ala khalq illah wuxuu maleynaya annahu ahsan min an-nas ma ahad wasal ila ma wasala ilayhi kibrkaasi qalbigiisa ku jira ayaa marka qaar kood sabababa inaanu ilaahay nihaayo fiican aanu ku arsaaqin bahasha shiishadu ikhwaani khataraha ay leedahay waxa kamida imika wax la gaari heer wal ciyaad billah ragii dumarkiiba wada cabaaya hablo iyo wiilal wada fadhiya ayaa shiishadii wada cabaaya maxaa dhacaysa shiishadii afka lagu qabsanaya bahashii pipe-kii nimba ku haysta afka andhuufkiisii iyo dhareerkiisii ayaa pipe-ka ku wada yaala gabar buu dhiibaya iyana markay afka ku qabsato pipe-kii ee dhareerkeega andhuufteedii oo ku yaala pipe-kii ay nin kale u dhiibaysa waxaan akhriyay culimada islaamka sida imaam nawawi rahimahullah ta'ala oo leh tin dumar haday tini ka go'do qof dumara oo iyadoo dhulka taala kuma banaana inaad eegto oo imaam nawawi tin haweenay oo go'do dhulka taala ama miiska dul taala hadaad eegto oo u garato inay haweenay tinteedii tahay kuma banaana waa wuxuu yiri wixii ay xaraan tahay in la eego isagoo nool xaalad hayat xaalad dhimashadana ma banaana
in la taabtaana ka sii daranba sagarmaysid dadka saalixiinta qaarkood haddii masakoo kale in muwaasalaadka caamka ama basaska ama diyaaradaha ama marka hadduu arko kursi ay haweeney ku fadhidii ama gabar saalixada kursi uu nin ku fadhiyay kursi markaan in badan ku fadhido kursigu uu diiraya dadka saalixiinta wara cali waxa iska ilaaliyaan kursi haweeney ku fadhiday oo wali sii diirnaan oo kuleelkii wali ku sii uu ka sii laga direemayo inuu ku fadhiisto waracan dumarka saalixaadku waa saasi bal dadkan baybka iyagoo candhuuftii dhareerkii ku wada yaalo isku dhidhiibay qiyaasa marka shiishadu mashaakil badan bay leedahay laakiin umuuman ikhwaani wa akhawati waxa weeyaan baninkaasi ilaahay toobadu ilaahay ku arsaaqay meeshu joogay iyo meeshu ku dambeeyay subhanallah walillahi fi khalqi shun sahih sida hore loo yiriba sheekada labaad waxay la xiriirdaa nin dhalinyaro oo dalalka carabta ka yimid garan maysid mareykan buu imanayay marka markuu mareykan arday ahaan buu imanayay طبعا markuu soo socday khitad baa madaxa ugu jirtay waxbuu soo samaystay waxbuu soo hindisay hindisiisa maxaa kamid ahaa mareykan waxa ugu tagaysaa de waa bilaad al-lahw wal-la'ib bilaad al-banat bilaad al-khamr waxa soo dhan waxa weeyaan waa baashaalaysa hablahaas iskala baashaali naad kilaabis baa tagi doonta khamr baa cabi xashad baa cabi waxa soo dhistay markuu mareykan yimid ayaa waxa dhacay gurigiisii apartment ayuu kreystay oo arday jaamacadii soo sajilay deetana ilaan jaamacadii uu imanay shaqooyinkiisii kala ayuu bilaabay habeenkii ugu horeysay uu tagay night club waa taqaanaan mareykan waa nolol maajina weeyaan waa nolol waxadaara maadiya si sayd qutb al-har rahimahullah ta'ala khawiya min al-qima ar-ruhiyya wa hududa malaha night club uu tagay halkii sidoo u dhaansaayay iska ilaalinay khamriga cab misaha cabin waa shaytaanka weeyaan haajiskaasi macsiyada ka ilaalinay markaad jabiso markaas ugu darantay hablihii dhaansaayay ayuu fiirfiiriyay ilaa waa nin arrin mareykan yimide wuxuu yiri caaw Soomaha caawta ugu quruxda badan night club-kaasi waa inaad ku raacday weeyaan oo gacanta qabsato ishiisa waxa ku dhacday inaan malaamixdeedu ay yihiin maxay malaamix arabiyad u eg buu arkay laakiin aad u qurux badan markuu saa u eegayba iyadoo ayuu arkay iyadoo soo eegaysa iyadoo waxa uu gartay inuu wiilkan dhalinyartii uu Arab yahay markay wada hadleen baa waxa ugu soo horreysisay xagad Arabiyeed baan ahay soo aad u farxay laakiin waxa uu xigsiisay laakiin waxaan ahay nasraaniyad baan ahay baytay kristaan baan ahay baytay kristaan aad buu wax xumaaday inay raacdo ayuu weydiistay waxa ku tiri may kuma raacayo shuruud baan hayaa shuruudeeda haddaad ka soo baxdo waa saaxiibana laakiin shuruudaha haddaad ka soo bixin saaxiibi mayno maalin dambe ay la soo hadashay waan inaan ku arkaan doonayaa soo imaad doonayna way sarkeen waxay sidaa macatab cross saliib ay sidaa weyn saliib macatabkii bay ku tiri crosskii haddaa doonaysid inaan iska siiyo waxaan ka rabaa inaan macatabkaad xirato taraddada kasiiran sheekadana mid kugu daray magaciisa maxamed buu ahaa way hadhow baa inuu wax ka sheegi doona magaciisa maxamed buu ahaa miyaan xidhaa waa jacaylka wax walba ka weyn alxubbu yacmi somaha jacaylkii baa indha tiray saliibkii buu xidhay iraac may ku raaci maayo shardi kale ayaan leey waxoogaa bay socdeen haddana maalin kale ayay u yeedhay say ku tiri wari ay dhegeysa bay tiri haddaad doonayso inaan saaxiibadaan noqdo kristaan baan ahay inaad kristaan noqotaan doonayaa bay tiri culays ay ku noqotay laakiin waa maxay qofku markuu albaabka sharka isku furo uu ku dhacaya in badan buu ka taraduday oo uu ku noqday arrinkii laakiin akhiiran
tanasar inta kumay joogine waxay tiri kaniisadaadii raacaysaa markuu albaabkii kaniisadii weynaa markuu sidaa uga galay uu dhex fariistay ayaa waxa ku soo baxay wuxuu ahaan jiray iyo meeshuu ka yimid halkii buu ka soo baxay uu soo rooray apartmentkiisii buu ku soo noqday wuxuu xusuustay inuu magaciisu maxamed ahaa wuxuu xusuustay aabihii markuu salaada subax u kicin jiray wuxuu xusuustay awowgii oo gacanta haya oo masaajidka geynaya wuxuu xusuustay musxafkii quraanka ahaa ee isagoo yaro dhalinyara uu quraanka ka barin jiray wuxuu xusuustay hooyadii oo markuu guriga soo galaba ku leh yaa waladi allah yahdiik yaa waladi allah yahdiik yaa waladi allah yahdiik inankaygu ilaahay ha ku hanuuniyo inankaygu ilaahay ha ku hanuuniyo inankaygu ilaahay ha ku hanuuniyo wuxuu go'aansaday inuu qalad weyn ku dhacay inuu toobad keeno ayuu doonay laakiin shaydaankii baa la hadlay oo waswaasinaya oo ku leh it's too late hagu ilaahay toobad kaaga aqbali adoo maxamedaad koros xidhatay adoo maxamedaad khamri cabtay adoo maxamedaad naag xaaraan ka aad raacday adoo magacaagu maxamed yahay baad kristaan noqotay ood kaniisad gashay laakiin kaana rajulan nin buu ahaa rumaysan inuu isbedel samayn karo oo noloshiisana uu bedeli karo jaamacadii buu kansal gareeyay gurigii buu ka baxay one way ticket buu dalkiisu goostay dalkiisu buu ku noqday airborku markuu ka tagay ee gurigii uu tagay ayaa rama nafsa fi xidni ummihi hooyadii dhabtiisii isku tuuray soo hooyadii buu hagareeyay isagoo ooya hooyadii aanay garanay limaada yabkii why he is crying muxuu la ooya hooyadii waxa dareentay laakiin in maxamed noloshiisii ay isbedeshay min masjidin ila masjid min khayrin ila khayr min amalin salih ila amalin salih masaajid buu ka baxaya masaajid kale ayuu tagayaa daris buu dhageysanaya daris kale uu dhaafaya waxa uu soo gashaa habeenkii isagoo habeenkii u taagan tahajjud ama sujuudsan habeenada kamida ee sidii caadadeeda ahayd ay tiri soo eeg maxamed waxaad aragtay maxamed oo sujuudsan yaa maxamed yaa waladi yaa maxamed yaa waladi ma yajib umu jawaabin way shakiday walaale caruurteedii kale ayaa u yeedhay tiri kale eega inanki walaalkiin kale eega ma hadlaayo inamadeedii mid kamid ah ayaa inta ku soo dhawaaday ayaa nadara ila akhihi walaalkii buu fiiriyay isagoo sujuudsan laakiin wuxuu arkay in walaalkii ay nafti ka baxday yaa ummi waladak maat hooyoy inankaaga uu dhintay hooyadii markay maqsinka qolka markay soo gashay habeenkaasi waxay ka urisay carfi aan adduunyada lagu aqoon oo aad u udgoon oo meel kale talo ka yimid maxamed waxa weeyaan meeshuu joogay inuu gaaloobay oo macatab xidhay oo khamri cabay oo kaniisad galay markuu rumaystay inuu isbedel samayn karaayo isbedelkaasina uu ku samayn karo an yatuuba ila allah inuu ilaahay u toobad keeno nihaayadiisi waxay noqotay in ilaahay subxaanahu wa ta'ala an yaqbida ruuxa wa huwa saajid fi dhulmati al-layl qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh